munaasabad lagu xuseeyay maalinta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana halkaasi khudbada ka soo jeediyay waxgarad qurba joog iyo dhalinyaro kuwaasi oo dhamaantoodba ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay maalinta calanku. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaanu halkan shucuurteeda ku muujinaynaa taageerada calanka maalinta ay tahay 12 Oktoobar oo ah maalintii calanka Soomaaliyeed. calanka waxaanu qaadanay 1954 waxaanu ahayn dadkii ugu horeeyay u dagaalama oo u soo dhinta deegaanka aan ka soo jeedno anagu aan joognay Buuhoodle meeshii ugu horeysay xaq dirku ka dhashay bay ahayd dadkii u dagaalamay waxa weeye waan ku guuleysanay Ilaahay idankii maantana waxaanu taageeranaa aanu mar labaad muujinaa taageeradeeda ku cadeynaa shucuurtayada inaanu u taaganahay midnimada Soomaaliya mar hore iyo mar dambaba aanu u taaganahay midnimada Soomaaliya waxaanu leenahay oo aanu nahay anagu dhalinyarada deegaanka Khaatumo Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu halkan shucuurtayada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ku muujinaynaa inaanu u taaganahay qaranka Soomaaliyeed. Soomaaliya meel kasta oo ay joogto ka unba calana waxaan maqlayay niman baa ka go'ay oo doonaya inay ka go'aan waxaan leeyahay xilligaas uu dhamaaday waa gabagabo uu soo dhamaaday maantana Soomaaliya mid un bay noqonaysaa haddaan nahay dhalinyarada Sool iyo Sanaag iyo Cayn deegaanka Khaatumo waxaanu leenahay lafdhabartii horeysa iyo dambayso ayaanu nahay lafdhabartii Soomaaliyeed maantana aanu u taaganahay waxaanu isugu soo baxnay halka kan oo beerta xorriyadda taageerada calanka ummadda Soomaaliyeed annagoo ah gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu halkan ku xusanaa 12 Oktoobar maalinta calanka ummadda Soomaaliyeed. maanta oo ku sugannahay gobolka Cayn ee degmada Buuhoodle waxaan hambaliyo halkan uga dirayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadba waxaan u diraynaa calanka maanta oo u dabaaldegaynaa oo calanku astaantiisa yahay midnimada Soomaaliyeed uu tilmaamayo. Soomaaliya waa mid sida aad aragtaan waa mid nimcooyinka Ilaahayna siiyay inaynu ku xamdino oo diidno maaha waanaynu ku xamdinaa barwaaqada Ilaahayna siiyay meel walba oo Soomaali joogto iyo dhul walba Soomaaliyeedna waxaanu leenahay Ilaahay idinkana khayrka hayda waafajiyo oo hayna mideeyo. beel dhaqameedka odayaasha Khaatumo waxaan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliya meel kasta ay joogaan caalamka waxa weeye haddaan nahay odayaasha dhaqameedka Khaatumo waxaanu taageerinaa calankayaga iyo dadkayaga iyo dalkayaga aan waxaanu leenahay Soomaaliya ha israacdo wixii diidan ha dhaceen. si kastaba ha ahaatee munaasabadan ayaa waxay qayb ka noqonaysaa munaasabada nooceeda ah oo ka dhacaya qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba daafaha caalamka. Axmed Darwish, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Buuhoodle.